iyadoo uu sii kordhaya tirada dadka uu ku dhacayo cudurka COVID-19 oo mar kale ku soo rogaal celiyay gudaha dalkana Norway ayaa cabsida ugu weyn ee haatan taagan waxay tahay halista fayruska Omicron oo markiisii ugu horeysay dhamaadkii bishii aynu soo dhaafna laga helay dalka Koonfur Afrika hase yeeshee si fudud ku soo gaaray qaaradda Yurub mulki miro guuleed oo ah kalkaaliso caafimaad isla markaana ka shaqeysa magaalada Bergen ayaan wax ka weydiiyay waxa uu yahay fayruskani iyadoo talo ku aadan caafimaadka u jeedisay Soomaalida ku nool dalkani Norway run ahaantii maaha markii ugu horeysay oo la helo noocyo ka mid ah coronaviruska Omicronahan hadda soo baxay lagana helay qaaradda Yurub waa gaar haddana laga helay dalka Norway waa nooc ka halis badan fayrusyadii hore sida kaliya loo xakameyn karo waa in la qaataa talooyinka wasaaradda caafimaadka loona hoggaansamo amarada dawladda tusaale ahaan in mar walba afka la xirto nadaafadda gacmaha oo lagu dadaalo in la yareeyo isku imaatanka dadka badan afxirashadu waa muhiim haddii aadan qofka u jirsan karin ilaa 1 mitir marka aad raacayso gaadiidka dadweynaha walaaca jira ayaa ah in fayraska cusub si aad ah uga duwan yahay noocyadii hore ee Alba iyo Delta wuxuuna u nugul yahay inuu halis caafimaad geliyo dadka aan weli qaadan talaalka dadka da'dooda ay ka weyn tahay 65 sano ee qaba xanuunada gaarka ah halka uu ku dhici karo dadkii hore u qaatay talaalka wallow la sheegay inay yar tahay khataraha caafimaad ee wajihi karaan waxayna taasi ka dhigan tahay muhiimadda ay leedahay qaadashada talaalka oo loo adeegsado ka hortagga faracyada fayrusyada COVID-19 muhiimadda in la qaato talaalka waxaa ka mid ah inuu ka difaaco halista koronaha sababtoo ah wuxuu ka caawinayaa in aadan xaalad halis ah u gelin fayruska tusaale ahaan koobaha aan ka shaqeeyo dadka xanuunka uu soo rito weliba halista u gala waa dadka aan weli qaadanin talaalka taasi waxay caddeyn u tahay muhiimadda inuu leeyahay talaalka dhammaan waxaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed in aan aamino cudurka inuu jiro halis dhimashada uu leeyahay sida awgeed ummadda Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa inay qaataan talaalka is ilaaliyaan ilaahay ayaa wax ilaashay loona hoggaansamo talooyinka wasaaradda caafimaadka soo rogaal celishada COVID-19 ee dalkana Norway ayaa ku soo beegmaya xilli lagu guda jiro qaboobaha waxaana xilligani caadi ah in dadka uu ku dhaco hergabka waana sababta keentay in uu kordho fayruskani Bilaa Maxamed Cabdi Aragto Cusub TV magaalada Bergen